xilli ay weli socoto dhismaha wadada ka baxda beledweyne ee xiriirisa gobolada Hiiraan iyo Bakool ayaa waxa maanta deeq lacageed gaarsiiyay walaalo muxsiniin ah oo codsaday inaan magacooda la shaacin. deeqdan lacagta oo dhan $5,300 ayay walaalahan u soo wakiisheen shirkadda Kobac qaybteeda Kobac Foundation. wakiilka Kobac Foundation ee magaalada beledweyne Ibrahim Maxamed Laanjeeri ayaa ka warbixiyay deeqda lacagta iyo halka ay ka timid. kana tirsan shirkadda Kobac Training Company أنا وكيلك حسن كوبع فونديشن بلدوينة وحان داخل على النسوق جرسي لبقف أو محسنين ونصوّر كل شيء وضدًا حريري سوق بلدوينة في الرباح إن نقول رجنو داخل صوتًا العكشان كون يصدح $100 دتكاس محسنين تأوسومري بدنياها شركة كوبع أهنا مدحة فونديشنka حسن كوبع فونديشن ayadoo ay ahayn markii koobaad aan soo boqono wadadan ay tahay markii labaad adana aan ka qayb qaadan doono mar walba iyo mar kastaba aan taaganahay hadana aan shirkadda Kobac xilli kasta aan qayb libax ka qaadan doono walaalahaas muxsiniinta lacagtay soo dhiibeen waxaan ku wareejin doonaa guddiga farsamada dhismaha ee wadada xiriiriso بلدويني في الرباح أيضا شركة كوبع هدف كذا وياهي وحقبص وحلو لقبته مركا ضدك وحن كبورين لعينه وحقبصدان سيدي وحنا لقبته تدوينها ودوين هالبولها أنا أقول بسنة مركا وحقبصدا وحلو لقبته مريسا مركا وحن كوريجينا جوديجا فرسمة وضدا اسمان برا عمر كوريجي cismaan barre cumar oo ku hadlayay afka guddiga dhismaha wadada ayaa ka mahad celiyay deeqda lacageed ee maanta la gaarsiiyay. Ibrahim Cabdi Maxamed oo loo soo wakiishay lacag $5,300 oo ka timid walaalo muxsiniin oo ama dibadda jira ama dalka joogo annagoo ah guddiga iskaashiga ee dhalinyarada dhisaysa wadada xiriirisa degmada beledweyne iyo degmada Firlibaax wadadaas oo hadafkeena hore yahay ilaa iyo deegaanka Majabaaley oo subaxan noogu soo booqdeen oo inagu wareejiyeen lacag $5,300 waa ka guddoonay insha Allah taala gacantayna ay ku jirtaa waana marka labaad ay nagu soo booqdaan aad iyo aad aynu u mahadsan yihiin haddii aan nahnay dhalinyarada iskaashi insha Allah taala bidilaahi kariim waxaan ballan qaadaynaa dadkaas muxsiniinta meeshii ay lacagtooda ugu targaleen inay marto. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beledweyne ayaa dhankooda ka mahad celiyay deeqda lacagta ee maanta la gaarsiiyay guddiga dhismaha beledweyne waxaana sidoo kale ay u mahad celiyeen walaalaha muxsiniinta ee deeqdan lacagta soo gaarsiiyay. waxaan aad u bogaadinayaa oo aad ugu mahad celinayaa dadkii muxsiniinta ahay oo waxa waaye maalkooda sadaqaystay wadadan ugu deeqay mahad celin saddexaad waxaan mahad celinaa walaalkeen Xasan Kobac oo na soo gaarsiiyay macnaha deeqdaas dadka muxsiniinta walaalaha ay bixiyeen mahad celin kadib waxaan leeyahay dadka islaamka walaalaha dalii dibad joogo wadadaas waxa waaye nin aad lahayn oo qabiil lahayn oo qoys lahayn oo macnaha wadada gobolada badan oo Soomaaliya isku xirto cid kasta ay u baahan tahay maraysa in laga qayb qaato dawladda heer gobol iyo heer degmo heer maamul gobol heer federal wax badan aan macnaha lala hadlay miidiyahan u marinay si geesanad ula fariisanay wali wax kama hayn wax jawaab wali kama hayn waxaan leenahay marka wadanka waxa way guriyaaskii waan suurka la barmayso hadii la rabo wadanka in la xukumo in wax laga qabto in waxa way la sheegto hadii la rabo waxa way wadadan wax laga qabto waxa alla wixii macnaha gobolka waxa way ka soo mashaariic ka jiro adiga gacanta ku hayo mashaariicda loo fasaxo jeebkiina ka bixiyo midkaan ummadda islaamka uu qayliyo waxa way dawladda waxaan ku dhaleeceynayna wax badan oo la hadalay meel meesha wax ka qabanin haddana waxa way laga maqbuusanayo haddana waxa way waa sugeynaa rag islaam ah muxsiniin lacag ay soo direen goob joogan ka noqon waa la wareejiyay ilaahay adduunka aakhiraha ku libaano إن شاء الله تعالى وركيد ما بدنا
dal iyo dibid ninkii arkaayo maqalka iyo muuqaalka jidkaas islaamka waxtarmo u yahay ummad kastaa marayso waxaan maaragtay aan cod dheer ku sheegaynaa jidkaas in dhismadiisa nin kastoo islaam aas ka qayb qaato insha allahu tacaala wixiis uu ku bixiyo maanta waana noolnahay inaan caawa gaarayna ma hubno marka nin kastoo hantiis ilaahay siiyo ilaahay wax u soo dhiibay waalidiintiisii asiga naftiisa awlaadiisa aradiisa inaas maaragtay ku intifaaco oo ajir ugu raadsado ilaahay awlaad ugu toosiyo ilaahay qabri ugu toosiyo waalidiintiisa kuu hori kuu dambo ilaahay ugu naxariisto aan faraynaa insha allahu tacaala jidkaan shalay bannaan buu ahaa jeerinkaas xiraaye jidkaan shalay bannaan buu ahaa jeerinkaas xiraaye haddeerna jammaaddiisu waa waxaad u jeeddaane haddeerna jammaaddiisu waa waxaad u jeeddaane niman baa u joogsado ku bixi juhdi iyo maale jeebkooda wixii ugu juray jalaqu siiyeene waa sadaqu jaariya ah iyo jeenanaan goyne waa sadaqu jaariya ah iyo jeenanaan goyne jahaadkana ku sii wada allah idinka jaasayne jahaadkana ku sii wada allah idinka jaasayne waa islaam jiraaye ilaahay jannaha ugu bedelo waa islaam jiraaye